aniguna tusmaysto qayrkay halku tegay utabaabulshayste. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan wanaagsan idin lahaanba dadkana daawanayo ku soo dhawaada halkani waa Majorka Xiga channel. Maanta waxaynu ka hadli doonaa xoolaha Soomaalida iyo qaabka aynu u dhaqano. Soomaaliya waa wadan ku yaala qaaradda Afrika, si gaar ah bariga Afrika. Waxa ayna ka mid tahay wadamada ugu qanisan qaaradda Afrika. Mar baan ugu tilmaami jiray libaxyadii Afrika hase ahaatee dagaal sukeeye darteeda dhulka ayaynu galnay. Hadda waa inaynu dib u soo kabsanaa. Maanta kama hadlayno siyaasad. Sidaa darteed waa inaynu diiradda saarnaa barnaamijkeenu waxa uu ku saabsan yahay. Soomaalidu waa wadan ka mid ah wadamada dhaqda geela, waana wadanka labaad ee ugu dhaqashada badan sida aan aaminsanahay. Walaal hadda adigu ogtahay ama aad taqaano Soomaaliya waa wadanka ugu dhaqashada badan geela waa kee marka labaad baa mise waa kan koowaad. Adigu waa idin soo diri kartaa adoo mahadsan. Hase ahaatee ani ahaan waxa aaminsanahay inay tahay wadanka labaad haddaysan ahayn kan koowaad. haddaynu si toos ugu gudagalno barnaamijkeena ku saabsan dhaqashada geela. Geelu Soomaaliya waxa uu ka taagan yahay meesha ugu muhiimsan, waana midka dhalinyaradeenu ay isku dilaan. Waxaad arkaysaa nin ka tagaya dhul oo ku oranaya geel baan soo dhacayaa maanta. Asigu ma aaminsana inay xaraam iyo wax la mid tahay, hase ahaatee waa geesi oo kaliya, wuxuuna soo bandhigayaa geesinimadiisa. Soomaalidu waa ay dhaqataa geela, waa ayna ku duugtaan dadkooda. Sidoo kale waxa ay ku bixiyaan guurka hablahooda quruxda badan iyo dilka dadku ay isu geystaan. daawadayaal intaana waxa inoogu eg barnaamijkii maanta aynu uga hadlayna dhaqashada geela Soomaalida. Tan iyo kulantin dambe oo xiiso leh waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aniguna tusmaysto qayrkay halku tegay utabaabulshayste.